الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين ودرسي بقولات إيو كتاب كان حكم وفوائد من روائع الإمام ابن القيم رحمه الله. أنفع عمل كأو أحسن وحان الرجين إنه النقضو أما درسي قدام بيه كتاب كان أما هل درسي باك بينه بإذن الله تبارك وتعالى. camal la qabto maxaa ugu nacfi badan buuli sheekhu. Waxaa ugu nacfi badan camalka dadku aad ikhlaas ilaahay darti u samayso, ummadda iyo dadka dhexdooda aad kala maqan tahay oo ha lagu arka aadan u soconin, naftaadana inaad wax ku manaysato oo tidhaahdo waxaasaan qabtay aadan u sheegaynin. marka naftaadiina uma aragtid inay manigaas aad ku samayso, dadkiina waad kala iyagana waad kala dhuumanaysaayoo ikhlaas ilaahay darti baad u samaynaysaa. waxaa la yidhaahdaa alfawaa'id buu ku sheegay sheekhu macluumada. qofka aqoonsada naftiisa, u fiirso naftiisa, ruuxa gartaa wuxuu ku mashquulayaa islaaxeeda iyo hagaajinteeda. cuyuubta dadka kaleu kaga mashquulayaa. qofkii allah bartana wuxuu ku mashquulayaa isaguna rabbi iyo inuu xaqiisa uu ku leeyahay uu gudo. naftiisa iyo hawadeedii buu kaga mashquulayaa. qofkii dakhala naasu, dadkuna waxay ku galaan baa layidhaha abwaabta naarta, waxay ku galaan 3 albaab bay kasoo galaan. baabu shubha oo awratha shakan fi ddiin. shubho waa baab weyn, horeyna waan usoo sheegnay, oo dadku ku halaabeen diintana shaki ayay ka gelisaa. iyo baabu shahwa, shahwaduna iyaduna waxay dhaxal siisaa inuu qofku hawadiisa ka hormariyo daacadii rabbi iyo wixii alla raalliga ka ahaa. kan saddexaadna waa baabu ghadab, iyo caradii iyaduna awrathat alcudwaana calaa khalqi, dadka ilaahay in lagu xadgudbo ayay iyaduna keentaa. alxayaatu alxaqiiqiya, nolosha dhabta ah الطيبة هي حياة من استجاب لله والرسول صلى الله عليه وآله وسلم ظاهرا وباطنا. ومعلومة كله حياة ربطة وقفك الله سبحانه وتعالى أجيبي يا الرسول كأجيبي ظاهرا وباطنا وهجان سميوي. ضدك يجي والأحياء وإن ماتوا وضد نول بالإرادة هبردنتين غير كود وكوان دنتي حتى هدين نوليهين. qofka haduusan allah subxaana sida gaalada oo kale, gaaladu iyagu oo nool oo adduunka joogay bay haddana yihiin amwaat, ay yihiin amwaatun, dad dhintay weeyaan. walidaalika ayaa akmalu nnaas, dadka ugu nolol fiican waa dadka istijaabada ilaahay subxaana watacaala iyo rasuulka ugu yeerid badan, wixii u yeedhayna raacay. noloshoodana qofkii waxaa la yidhahdaa ay ka tagto qeyb ka mida istijaabada, qeyb weyn oo noloshiisii ana way ka maqan tahay. ayib, allawxu lmanquush wuxuu sheekhu ku gebagabeeyey kitaabkiisaan amaan soo aqrinaynay. looxa waxaa la yidhaahdaa sida looxa wax lagu qoro oo wax lagu naqshadeeyo lagu qoro, ama warqad wax lagu qoray. marka wuxuu rabaa inuu ku yidhaahdo falqalbu lawxun faariqun, qalbigu waa sidii loox faaruq ahon waxba ku qoreen qalbigaagu. waalkhawaatiru nuquushun, khawaatirta waxaan kugu soo dhacayana waa wax lagu qorayo, looxii faariq aha ee cadaabaa lagu qorayaa. haddaba fa kayfa yaliiqu bilcaaqil, sidee bay suuragal ugu noqon qofka caqliga leh in nuquushta looxiisa wixii lagu qoray uu noqdo maa bayna kadibin wa guruurin wakhidac, wax aan wada jirin oo been iyo guruur iyo khayaano inuu ka buuxiyo looxaagii caddaa, inaad ka buuxiso, iyo waxyaabo amaani baatila ah oo la xaqiiqata laan xaqiiqa. fa ayu xikma, marka xikmad miyay ku jirtaa inuu qofku intuu garab maro cilmi iyo hanuun iyo wax wanaagsan waxaa xunxunkaa ka buuxiyo looxiisi. waidaa araada allah, hadduu ilaahay subxaanahu watacaala uu doono inuu qofka looxiisa waa qalbigiisii wax wanaagsan uu ku qoro, waxay noqonaysaa bimansilati kitaabati alcilmi naafic, in cilmigii naafic aha loogu qoro, inuu ku mashquulo kitaabada wax wanaagsan ee anfacaya qalbigiisa. wax alla wixii xunna uu diido oo uusan yeelin qalbigiisu biidni illaahi tabaaraka wa tacaala. kadaalika khawaatirtii waxyaabaha kusoo dhacaya oo wanaag aan lahayn.
بإذن الله تبارك وتعالى. وبذلك نكون قد فرغنا سداسا وحان نقنينا كوا كبحي دميستري كتابكي شيخ إنوسو وذي oo ilaahay subxaanahu watacaala uu inoo dhammaystiray kitaabkan sidaan bilowgiisa ku sheegnay dad baa laga yaabaa inay dhexda kala soo qabsadeen. waa kitaab laga qoray sheekha xikamtiisii oo laisu ururiyey taqriiban. xikamta haddaan aqrinayo u dambeysay waa 202 xikmadood oo hadalla wanaagsan oo ibnu qayim yidhi baa laisu ururiyey. marka waxaa laga dhigay kitaabkan xikam oon soo aqrinayna biidni illaahi tabaaraka watacaala. ilaahay subxaanahu watacaala nafta hadduu inoo daayo waxaan isugu imaan doonaa kitaab kale oo cusub biidni illaahi tabaaraka watacaala. ilaahayna subxaanahu watacaala hayna gaadhsiiyo, cilmigeenna ha ka dhigo cilmi naafica iyo camalkeennana saalix ha ka dhigo. ilaahayna subxaanahu watacaala haynagu ilaaliyo. wajazaakum allahu khayr. gadaal baan insha allahu tacaala kitaabkuu noqon doono aan kasoo sheegi doonaa insha allah. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.